dalkan intii aan soo joognay dadka ugu badan oo aan dalka ka bixin baan ahaa ama ka agdhowaa meesha la joogana hadda u jeeda. dalkan wuxuu u baahan yahay in si dhab ah loo galo xaqiiqada, la iska dhaafo danaha shakhsiga ah iyo damaca qofka, laakiin la aado marxaladda xaqiiqiga ah oo isbeddel dhaba lagu sameeyo. aniga hadda 4 sano dhowdhow baan ka maqnaa, intii aan muqdisho joogay wax isbeddel aan arkay ma leh. waddada hadda aan soo maray waan indhaynayay, wax ku kordhay ma leh. bulshadu sidii bay u cabsanaysaa, dalku sidii buu weli u burbursan yahay, dowladnimadu sidii bay isaga daba wareegaysaa. marka intaas aan waxaan qabaa inay nagu filan tahay, maxaa yeelay raad arooriyo dib looma raacaa la yidhi. wixii shalay khaldanaa khaladad badan baa dhacay. khaladaadkaas haddii aan ku noqnoqonno hore uma soconen. anigu waxaan qabaa khaladaadkan inaan iska gudubno. dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan, siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan baarlamaanka soomaaliyeed heer federaal xubnaha ku jira iyo dowladaha xubnaha ka ah madaxdooda iyo baarlamaanadooda, waxaan ani aaminsanahay in ay waqti geliyaan marxaladda aan ka jirno si wada jira inaan uga baxno. aragtida kala qaybsan waxaa la rabaa inaan god intaan lala gelin qol mugdi ah aan la oran waa la iskhilaafsan yahay, fagaarayaasha intii lalis yimaado la garnaqsado, wixii halkaa lagu heshiiyana halkaa looga gudbo. baarlamaankan halka waa doodaan, xerar baa isku khilaaftaan, cod baa loo qaadaa, cid ka daba hadasha ma leh. anigu waxaan qabaa arrimaha masiiriga ee siyaasiga ah gogol intaan ka ballaaran ha loo dhigo, qof walbana doodiisa ha dhiibto. dalka waxa danta ugu jirta ayaa qofkii kaleetona danta ugu jiraysa, hadduu markaa xataa dan u arkaynin. dantaasaa asal ah. dowlad dhiska inaan marxaladiisa qiimeynaa asal ah. wadajirka inaan qiimeynaa asal ah. inaan isu dulqaadanaa asal